kubadda cagta ee Man City ayaa la soo wareegtay xidiga lagu magacaabo Haaland oo ciyaar kooxda Borussia Dortmund ayagoo Man City ay kula soo wareegtay lacag qiimaheedu gaaraya 75 milyan oo euro. Man City ayaa xidigani wuxuu u maray tijaabada caafimaadka wuuna ku baasay kadibna wuxuu dib ugu noqday kooxda u ciyaaraya Borussia Dortmund. sidoo ku waramay wariyaha caanka ah xagga isboortiga Fabrizio Romano waxaa la filayaa in isbuuca soo socda ama isbuucan dhamaadkiisa in lagu dhawaaqi doono heshiiska ay la gashay kooxda Man City ciyaaryahanka lagu magacaabo Haaland. mislaadahay Man City way u heshay ciyaartooyga u baahneed. Pep Guardiola shaxdiisa inta badan wuxuu ku ciyaaraa wax loo yaqaano false 9 ama number 9 ka beenta isagoo ma qaar ciyaartooyda qaar ka ciyaarsiisa number 9 sida Sterling iyo ciyaaryahan kale ee Phil Foden. Sometimes Gabriel Jesus ayaa ka ciyaara xagga weerarka isagoo u ciyaara kooxda Man City qaab nooba ahaan. Man City gool badan bay dhalinaysaa bariyahan dambe, xataa Real Madrid bay 5 gool ka dhalisay, laakiin dhibaatada haysta waxay ahayd xagga difaaca. mislaada Man City waxay u baahneed inay difaac iska adkayso maadaama goolasha laga dhaliyay kooxda Real Madrid ka dhalisay ay 6 gool ayna u baahneed kaliya inay shabaqeeda inta badan ilaaliso. ciyaaryahankan Man City haduu ku soo biiro dadka waxay leeyihiin Man City waxay iska haysan doontaa horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ayagoo hadda 4 mar qaaday 5 sano ugu dambeysay. marka waxaa la filayaa Man City sanadaas soo socda inay horyaalka iska maamulo doonto. xidiga lacagta lagu soo iibsaday lacag aad u badan maaha, balse mushaar ahaan lacagta u qaadanayo ayaa lacag aad u badan ah. sidaa darteed kooxaha way kaga baaqsadeen inay la soo seexdaan xidigan.